السلام عليكم ورحمة الله وبركاته khiyaarta sharafta la soo dhawaada insha Allah waxaynu maanta qaadan doonaa lobis soo loop wuxuu u qaysamaa saddex u qaysamaa midka koowaad waxaa la dhahaa while loop iyo sidoo kale waxaa jira wax kan loo yaqaano do while loop iyo sidoo kale for loop saddexdaas u qaysamaan marka loop faa'iidadu leeyahay waxa waaye waxa waqti dheer ka qaadan lahaa inuu ku soo koobo tusaale ka soo qaad tira rabtaa inaad soo saartid waxa u baahan 100 ilaa 1 inaad soo saartid 100 ilaa 1 inaad qortid waqti bay ka qaadanaysaa ama 100 magac ama 1000 magac inaad qortid kale waqti bay ka qaadanaysaa marka waxa weeyaan koor yar qorayo aan badnayn baa waxa awood u leedahay awood uu ku siinayaa loopka inaad soo saarto 100 ilaa 1 ama ka badan inta rabtid inaad soo saarto baa awood ku siinaya marka loopka waxa weeyaan faa'iidadiisa intaas weeyaan iyo shaqo badan uu qabanayo waaya soo koodkiisan si dhex gali doonaa inta bacdigeed halkan waxa ku jeedaa sentence qaabku u qoran yahay loopka hada fiirisid waxa weeyaan halkan waxa ku jira loopki conditionka meesha la gelinaya condition marka halka gelisid sidoo kale halkan waxa soo gali doonta waxa kan loo yaqaano koodka loo baahan yahay code block-gaaga baa ku soo galaya so inta bacdi waxa leedahay encrypt waxa loo yaqaan waxa leedahay encrypt ku soo doonta so halka hada fiirisid waxa weeyaan waa initialization baa sameynay initialization ka sameynay dan maxaa sameynay halkan conditionka waa nagu jira loop aan soo qaadan conditionki so calibration noo furan so halkan waxa weey output-keeni baa inoo yaala okay halkan output-ka ku yaala so inta bacdi halkan maxaa ku yaala sidoo kale waxa weey waxa loo yaqaano encrypt waayo so haddii encrypt waxa weeyaan ku wareersan tahay horay operatorskan waxa uu soo qaadan waxa loo yaqaano increment iyo waxa soo qaadan decrement waxa loo yaqaano increment waxay ahayd waxa waa value in la siyaadiyo qiimo lagu daro salahan hal lagu daray saddex lagu daray afar lagu daray adiga hab inta tira lagu daro waxa weeyaan ba lagu daraya decrement waxa weey waa minus waa decrease the value of a variable macnaha variable-kaagi ama qiimaha haysatay waxa weey in wax laga naaqusiyo oo wax laga jaro waa asana marka adiga inta doonto ku dari kara ada inta doonto waxa weeyaan ku dari kara horena waxa ugu soo qaadanaa visual basic baan hore ugu soo qaadanay maadooyinka kale oo programming-kan dhamaantood wada leeyahay ku soo qaateen waayahay marka ay xasuusno waxa weeye increment inuu ahaa plus minus plus laakiin tira inta doonto ku dari karid sidoo kale decrement inuu ahaa minus inuu yahay asagana sida waxa xasuusno waay so inta bacdi waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaano inaan coding ka dhex galno waay waxaan sameynaa first waxaanu sameyn doonaa okay so waxaan leenahay sura jaan qaadno halkan baa tagaynaa initialization baa sameynaa inti waa counter iyo soo counter kiiba waxa la mid ah 0 ha la mid ah macnaha halka waxa tiraa while counter-kayga ka yar yahay macnaha waa variable-kayga waxa hadda igu jira waxa weeyaan 0 ay haya macnaha waa 0 waa halkaas hada fiirso value-ga marka waxaan rabaa 0 maadaama uu yahay waxaan leeyahay qiimaha ii soo saaraya ka yaraado ama hala mid ahada ka soo qaad 8 macnaha hala mid ah okay inta bacdi calibration furan doonaa tira marka system output-ki waa sameynaysaa the number is waxay soo qaadaa inta bacdigeed counter-kayga soo qaad so maxaan ku sameyn doonaa plus aan ku sameyn doonaa halkan baa tagi doonaa inta bacdigeed waxaan leenahay counter-kan soo qabsan doonaa waxaan sameynaa encrypt aan ku sameyn doonaa synchronous waay maxay tahay halkan ujeedku maxay tahay horta aan ran galayna intaana waxa weeyaan aan dhex galin sharaxaada koorka intaan galin waan ran garin doonaa inuu shaqeynayo kale waay inoo shaqeeyay muxuu ka bilaabay tirada macnaha inoo saar wuxuu inoo saaray muxuu ka bilaabay output-kan muxuu ka bilaabay inoo saaray wuxuu ka soo bilaabay waxa kan loo yaqaan 0 ka bilaabay macnaha 0 ka bilaabay halkeebuu ku joojiyay wuxuu ku joojiyay 80 buu ku joojiyay macnaha 80 ku joojiyay waaya marka koorkan ku laaban doonaa inta bacdigeed waaya so waxaan sameynay halkan waxa weeyaan waa initialization baa sameynay so 0 aan u assign gareyn macnaha waa 0 iga bilow
waxa ii soo saari doontaa 0 iga bilow waaye ogow variable-kan wuxuu hayaa 0 hayaa halkaas 0 ka yahay waaye intaa bacdigeed halkan muxuu ka noqonayaa halkan waxaan nidhi operatorska ayagan waa inaa xasuusan tahay calaamada operator less than iyo greater than iyo saas ayagan waa inaa u taqaana u xasuusan tahay waxaana counterkayga meesha waxay igu tusinaya ha ahaado yacni 80 ha ka yaraato ama 80 ha la mid ahaato haddii hadda marka equal aan ka saarno 79 baa lasoo saari doonaa 79 ayaana lasoo saari doonaa okay fiir meeshan muxuu soo saaray 78 waa laga jira that means maxaa looga sababta loo saaray maxay tahay equal shiban ka saarnaa ha la mid ahaato ama ha ka yaraato equal shiban macnaha meesha ka saarnaa haddaa fiirsa halkaas equal shiban ka remove garaynay marka sidaas kugu soo saaraya halkaana waxa weeyaan waxa inoo yaalla waxa weeye dilaa ku soo gal yahay waxa inoo yaalla waa variable ka inoo yaalla waxaan awood u leenahay magac inaan gelin oo kale magac inaan variable ka keento qasab ma aha tusaale ahaan magac waa ka dhigi kartaa waxaa ka dhigi kartaa ka soo qaad tusaale ahaan maxamed oo kale iska qoraysaa maxamed haya aan rangareeyo so maxamed wuxuu soo saarayaa waxa weeye 79 jeer maxamed soo saari doonaa soo jeedin 79 jeer maxamed soo saari doonaa ereyga maxamed buu soo celin doonaa marka halkan waxaa gelisay statementka halkan aad gelisid bay ku xiran tahay hadda wuxuu noqonayo waaye sidan hore ku ceshan doonaa marka halkan waxa weeyaan waa increment waa yacni waa plus inaad ka dhigtid oo kale waxaad awood u leedahay oo kale inaad markasta marka muxuu ku darayaa hal buu ku darayaa halkan buu imaanayaa 0 soo bandhigayaa fasting ugu horeysa wuxuu soo bandhigi doonaa 0 soo bandhigi doonaa haddii hadda mar labaad aan ran garayno aan isla fiirino fasting muxuu soo bandhigay 0 soo bandhigay macnaha 0 soo bandhigay so wuu soo tegayaa halkan buu imaanayaa hal buu ku darayaa macnaha markasta hal buu ku darayaa haddana hal buu ku darayaa hal buu ku darayaa saas ilaa inta laga gaarayo 79 inta laga gaarayo macnaha 79 waayo 80 waxa ka yar waxa weeyaan lambarka ugu hooseeyo ugu horeeya ka yar 79 waayo haddaan equal dhahana 80 kun buu inoo soo saari doonaa waayahay marka sidaas u shaqeeyaa waxa kale loo yaqaana while loop sidaas inuu ku shaqeynaya markasta hal buu ku daraya macnaha tirada ku daraya waa maxay hal buu ku daraya aan fiir okay so halkaa markaad joogtid waxaa u baahan tahay haddana inaad ka jirto macnaha markii dhowto waxay ahayd plus bay macnaha haddaad fiirisid waa plus waayano waa plus waxa weeyaan waxaan dhan oo markasta hal buu ku darayaa so ifan ka soo qaad waxaa u baahan tahay 100 baa haystaa 100 oo kale haystaa 100kii inaad ka jidho dilaa ku soo galaya waxa kan loo yaqaano 100kii inaad ka jidho markas hal aad ka jidho 100 ka soo bilaabaya 0 keenaya camalka marka variable-keena tagaynaa halkan waxaan ka dhigi doonaa 100 ka dhigi doonaa halkan waxaan ku sameynaynaa condition ka imaan doonaa so condition waxaan leenahay 0 yaana 0 yaana dhihina greater than ay raahdo so halkan waxaan leeyahay 0 la mid ah 0 okay so encryptigan waxaan ku sameyn doonaa meeshan minus waan ka dhigi doonaa waaye muxuu ka soo bilaabi doonaa wuxuu ka soo bilaabayaa 100 ka soo bilaabayaa okay 100 ka soo bilaabo wuxuu keenay waxa kale loo yaqaano 0 ayuu keenay 0 ayuu keenay haddaad fiiriso okay hal xabo waxaan ku dirayaa waxa weeyaan tasti ah so markasta haddaad fiiriso meeshan halaa laga jaray 100 hal laga jaray 99 noqotay halaa laga sii jaray 98 noqotay halaa laga sii jaray 97 noqotay halaa laga macnaha markasta hal minus hala ku jira macnaha waxaan kaa rabaa marka adigoo systemkan ka faa'iidaysanaya inaad laba ka jirto camal tusaale ahaan 100 meeshan ku taala Soomaa 100 laba ka jir waxaa ku soo harasha 98 98 laba ka jir waxaa ku soo harasha 96 ku harasa 96 laba ka jir waxaa ku harasa 94 macnaha meeshan macnaha hadii la ku soo galaya waxa kan loo yaqaano meeshan hadii la ku soo galaya wanka minuska gelinayo minus 1ka uu leeyahay macnaha adiga laba ka dhigo laba ka dhig adoo koorkan ka faa'iidaysanaya sirtuna halkan bay ku jirtaa intaas adiga ku dhaafaya tareegara insha Allah dilaara okay halkaas waxaan ku dhaafnay waxa weeye intaas aan ku dhamaystirnay while loop intaas nagu egyahay casharkiisa waxaan gali doonaa waxa kan loo yaqaano waxaan gali doonaa do while loop baan gali doonaa do while loop sidii haddeer wax weyn oo ka duwan yahay asaga ma lahan waa kana qaabkan ugu waa initialization waxaa sameyn doontaa asaguna sidaan kale u qoran macnaha wax different weyn uga duwan yahay ma lahan laakiin codation-ka banaanka loo saaray fiirsid codation-kiisi
ayaa banaanka loo saaray haddaa fiirisid. Okay, so waxaa leedahay asaga do bracketkaas furanaysaa, bracketkaas furanaysaa, halkan call block ayaa kuu geli doona. waxa weeye halkan sidoo kale waxaa kuu geli doona halkan conditionka banaanka ku bixi doona oo bracketka banaanka ahaan doona. Okay, so asagana aan isla fiirino marka waa yahay aan isla tasdiiqreyno. intaas sidaa noo ahaato intaan baa iska tiri doonaa. halkan variable iska bedeli doonaa, waxa baan iska tirno dhib malahan. initialization baan samayn doonaa. waxaa leedahay inti a oo kale aan leedahay a la mid ahaato waxa kan loo yaqaano 0 ha la mid ahaato. so do waa leedahay do markaa bracketka furo, call block soo qaado. halkan marka waxaa kuu geli doona waxa weeyaan waxaa soo qaadan doontaa encryptionka, halkan baa ka siyaadi doontaa, then banaanka waa bax bracketka banaanka ka tag, waxaa tiraa while conditionka halkan buu ku geli doonaa. so waxaan rabaa marka zeros inaan ka bilaabo xisaabtan oo aan ku joojiyo waxa weeyaan 100 oo kale ku joojiyo. so waxaa leedahay variable-kaaga soo qaado, meeshuu ka yar yahay ama la mid yahay wuxuu la mid yahay 100 oo kale ku xir. okay, sidoo kale noo run gareyn marka. waayahay muxuu nooga soo bilaabay 0 nooga soo bilaabay, haddaa fiirisid 0 ka soo bilaabay, wuxuu inoogu joojiyey waxa kan loo yaqaano 100 inoogu joojiyey. 50 ma ka bilaabi karaa? haa. so halkan baad tegaysaa, halkan meeshan 0 daan ka dhignay 50 ka dhig, 50 u bedel, 50 baa laga bilaabayaa, markasta marka halaa lagu darayaa ilaa inta laga gaarayo 100, inta laga gaarayo halaa lagu dari doonaa. so inoo run gareyn iyadana. waay 50 buu ka bilaabay, sidoo kale muxuu ka dhigay 50 buu ka bilaabay. waay wuxuu ku joojiyey waxa kan loo yaqaano wuxuu ku joojiyey 100 ku joojiyey. marka waxaanu tiro intaa maanta dhan qori lahayd dhulku wuxuu kuu sahlayaa sidaa fudud inaad kusoo saarto. waxa weeyaan waxa ku daali lahayd macnaha sidaa fudud inaad kusoo saarto. waayahay intaa markaan sidaa uga socono bal aan sameyno asagana bal aan ka dhigno 50 intaan kasoo bilowno 0 aan ku joojino macnaha 50 intaan kasoo bilowno 0 aan ku joojino. soo joojin karnaa halkan horta imow meesha maadaama wuxu ay tahay decrement aan rabno inaan sameyno, halkan minus aan ka dhigi doonaa, halkan waxaan ka dhigi doonaa kasoo qaad aan iraahdo ama lamid 0 aan iraahdo meeshaas. waa sidii tii hore oo kale waaye, shaqay qabanaya, koolku qaabku kala duwan yahay uunba koolku qaabku u qoran yahay uunba kala duwan. waayahay so muxuu sameynayaa 50 buu inooga soo bilaabay, tii hadda cagsigeeda waaye, hagee buu inoogu joojiyey 0 inoogu joojiyey. okay, iyadana 0 inoogu joojiyey. waay taas waxa weeye iyadana haddii Ilaahay kuu sumogeliyey waa do while loop waayaan, iyadana sidaas u shaqeysaa. sidoo kale assignment-igi marka hore idiin diray oo kale waxaa sameysaa 2 ama 3 ama 4 hal mar ka wada jir systemka raadi hadana ugu jirta wax jidha waaye. waayahay waxaa inoogu xigi doona waxa kan loo yaqaana, waxaa inoogu xigi doona mid ugu dambeysa oo ah for loop baa inoogu xigi doonta. for loop marka iyada waxa weeyaan waa qaabkan bay u qoran tahay, wixii oo dhan waxaa la sameynayaa statement-igii oo dhan hal meel baa la wada gelin doonaa, macnaha hal line baa la wada gelin doonaa. okay, hal line baa la wada gelin doonaa. so halkan maxaa ku jira initialization-ki baa kugu jira, condition-ki baa kugu jira, iyo sidoo kale increment-ki baa halkan kugu jira, sidaas iyada u qoran tahay. waayahay so iyadana waa fiirin doonaa, iyadana hal mar halkan baa ku laaban doonaa. okay, maxaa leedahay for bracketkan baa furanaysaa, waxaad tirahdaa inti a waxay la mid tahay kasoo qaad 0 ay la mid tahay semicolon. maxaa kugu xiga inti waxaa u baahan tahay condition-ki waa u baahan tahay iyadana sameysid. so condition waxaa leedahay a waxaa u baahan tahay inaad soo bandhigtid kasoo qaad a waxaa u baahan tahay 0 to 100 0 to 100 waa u baahan tahay inaad soo bandhigtid. marka waxaa leedahay 0
waxaa leedahay a greater than or equal 100 yes 100 semicolon so intaa bacdeed maxaa samaynaysaa waxaa samayn karta waxaa loo yaqaano encryption aan ku samayso okay encryption so aan kala saar calibrate cipher so halkan ku samaysaa waxaa loo yaqaano system is soo qaado okay no run garee waa sidii oo kale waa soo jeedid wow 10 buu soo bandhigay halkan baa 10 ka dhigay caadi waaye halkan baa 10 ka dhigay marka waxaan yidhi variable-kayga wuxuu ila mid yahay installation-kayga wuxuu ila mid yahay 0 ila mid yahay ma intaan rabo in waxaan laga bilaabay 0 laga bilaabi doonaa waxaa la rabaa in laygu tujiyo waxa kan loo yaqaano 10 baa in laygu tujiyo 10 baa in laygu tujiyo haddaan dhaho 100 waa isku mid waaye marka dhammaantood isku shaqo qabanayaan laakiin qaabka